بسم الله الرحمن الرحيم. دمان umada Soomaaliyeed meel kasta joogto waan salaamayaa. Dad badan baa su'aalo iga soo weydiinaya caawa arrinta igu dhacday. Oon rabaa inaan si fiican ugu faahfaahiyo. Waxaan marayay hotelka Star ama xaafadda calaamada horteeda aan maraya ayaa dukaan baan ka soo baxay oo markaa ka adeegtay. Dukaankii markaan saa uga soo baxay waxa ila kulantay qabtan oo ciidan yaacaya ayaa walaal maxaa dhacay baan ku yiri jira adigu muran yar kadib waxay ii sheegeen ma jiraan warqad ama dacwad igu socoto warqad ay sidaan oo ay igu soo dacweeyeen saycidi ama dibaan sameeyay ii sheegeen already adigu gacan baa la igu bilaabay ilaa dhowr iyo 10 askari ayaa gacan i qaaday nabarrada ii geystay ma goobtii bay kugu dileen marka ay ka heleen mise saldhig baa loo geeyay goobtu waa wadada dhexdeeda la igu garaacaya gaari baa la isaaray ilaa intaan gaariga sii saarnaa nabarra igu dhacay maxay ahaydey sidaasay u dhacday saldhigii baa la igeeyay wax dambi oo la igu haysta la iima sheegin warqad la iga soo gudbiyay lama sheegin saldhig waa kee loo geeyay saldhiga qurac dheer baa la igeeyay oo bima laga qoray markii saldhiga loo geeyay xataa la iga qoray ma jiro waxaasan kugu haysanaa layma oran dibadun baa la isoo saaro la isoo tuuray hadana saldhiga gudihiisa jirdil miyaa lagu geystay nabarro way igu dhacayeen intaan sii socday ilaa markii la qaaday wax hadal ma istiraadeen nimankii meesha haystay nimankii kelmad bay igu yiraahdeen aad aan uga sii xumaaday runtii waxay igu yiraahdeen waan ku garanaynaa waliba heesahaagana aad baan uga jecel iyo fankaaga laakiin waxa iga yaabay qof ciidankayga oo booliska oo waliba ay garanaya oo waliba heesahaaga waan xiiseeyaa ilaa sababta igu geystay nabar ama igu dilay baa iga sii qiiraysiisay runtii والسؤال اللي سيانا قندو انو سوقعت سمية انا قولي مخيس كمان فكرة waxaa jira boqolaal kun oo qof oo nabarrada aniga igu dhaca habeen walba ay ku dhacaan iyagu kiisiyo dambi geysan waxaan ka codsanayaa ciidanka booliska insha Allah mar dambe inaan qof aan dambi geysan aan nabar ku dhicin war la siyaaنا qondoono dawladda waa xadgudubka iyo tacadiga ka socday gudaha dawladda iyo magaalada gudaheeda waxa jirdil loo geystay qof celebrity oo magac leh oo la garanayo waliba isagoo garanaya dambi la'aan lagu jirdilay waad u jeedaan ninkan nabarrada ku yaala wajigiisa jirkiisa inta kale nabarrada ku yaala ka badan dhowr iyo 10 askari saldhiga qurac dheer ka tirsan ee magaalada Hargeysa muuqaalkaygaas cidi kasta oo soo gaara waa in ay share garaysaa waa in la faafiyaa muuqaalka waa in jawaab degdegana sida ugu dhaqsaha badan laga soo dhiibaa